ujeedada muuqaalkan galabta aan u duubaya waxay tahay haddii aan kuu sheego bishii ugu dambeysay iyo maalmihii ugu dambeysay ku dhowaad 10 qofood oo ay ku dhegan yihiin security document ama document security Gmail oo ah 1xbet-ka saaxiibadaas oo aad u badan ayaa ila soo xiriiray marka si marka oo aan wixii la xalin karana aadin kugu sheego wixii aan la xalin karin hade aad marka hore taba inta aad gelin aan kaaga warbixiyo waxaan ku xasuusinayaa channelka inuu yahay channelka Galler Media aniguna waa Cabdulle Elano ujeedada muuqaalkan galabta aan u duubaya waxay tahay haddii aan kuu sheego bishii ugu dambeysay iyo maalmihii ugu dambeysay ku dhowaad 10 qofood oo ay ku dhegan yihiin security document ama document security Gmail oo ah 1xbet-ka saaxiibadaas oo aad u badan ayaa ila soo xiriiray marka si marka oo aan wixii la xalin karana aadin kugu sheego wixii aan la xalin karin hade aad marka hore taba inta aad gelin aan kaaga warbixiyo tusaale hadeertaan waxaan muuqaalkan kugu barayaa sida aad lacagta ula bixi lahayd lacagta haddii uu kaa diido siyaabo badan waxaa jirto oo kaaga diidi karo oo maxaan leeyahay inaad lacag kala baxdo 1xbet muuqaalkan waxaan kugu wadaagi doonaa qaabka aad ugula bixi lahayd lacagaha 1xbet kaaga xayirma ama ku diida marka waxaan rabaa inaan hadda lacag kala baxo akoonkeyga marka waxaad aragtaa waa kilig waaye kod igama rabo oo ujeedaa wax oo maaragtaa isheeg wuxuu leeyahay profilkaaga ma dhammaystirna waa kan 2 jeer oo horeeto ayuu iga diiday marna kodii $2 ka bixi rabay marna kodii $1 ka bixi rabay waa iga diiday marka waxaan rabaa in aan xaliyo haddaba ila soco saaxiibayaal sidaa hore usoo sheegnayba ama hore usoo aragtayba waxay ahayd cilad jirtay aawadeed in lacag nooga bixi weysa ciladaas ma garan kartaa ciladaas haddaan kuu sheegaa ciladaas waa marka koowaadii waxaanu ku buuxsaneen foomka haddii uu ku buuxsan yahay oo account-kan only one u yahay waxaa fududaanaysa inaad lacag kala baxdo ama aad lacagta la bixi karto hadda account-kan waxaan u buuxinaya yar oo lacag kaga xeerantay oo lacagta la bixi waayey aawadeed sababtoo waxay tahay foomka muusuu buuxsano account-kan wuxuu sameeyey maantay lacag taan ayuu rabaa inuu kala baxo marka wuu ka xayirmay saa horadii kuu sheegayba aniga asxaab badan waxaa jirto ay ku xiran 1xbet asxaabta ugu xiran cabashadooda waa tixgeliyaa waa caawiyaa waa taageeraa qofkii lacag uga xeeranta waa uga bixiyaa qofkii maaragtaa cilad farsamo ka qabsato waa ka xaliyaa marka hadeertaan waxaa maaragtaa ila soo xiriiray yar asxaabteeda ka mid ah waa uga bixi weysa lacag marka muuqaalka saa hore usoo aragteenba waxaa lacag uga bixi weysay akoonkiisa 1xbet marka waxaan rabaa inaan u buuxiyo foomka inaan u buuxiyo rabaa wuxuu yidhi Ibraahim magaciisa Xulbaale Axmed saa halkan gaari kartaa asxaabay waxaa yar iga soo codsada WhatsApp-ka in uu maaragtaa lacag uga bixi weysay waana u xaliyo marka Xulbaale wuxuu yidhi Ibraahim Xulbaale Axmed okay birthday-giisa halkan gelinayaa hadda waa isaga buuxinayaa asaga laakiin screenshot-ka inuu iska haysto waa muhiim
lambarna waa u saarayaa, authentication code-na waa ugu xirayaa, waayo isaga hadeertaan ma uu lahan ID, keliya wuxuu doonayaa inuu lacagtiisan uu kala baxo, keliya ayuu doonayaa. Marka waa inaan ku taageeraa sida uu hadeertaan lacagtiisan ugala bixi lahaa. Foomkii ayaan u buuxinayaa, Bleed balance ninkani soo ii sheegay Baydhabo ku dhashay, wuxuu joogaa caasimadda Muqdisho. Residency-giis waxaa uga dhigayaa Ibraahim Xurbaale, uga dhigay. Document ID ma lahan, kolley document ID-ga lambarkiisa ayaan uga dhigi doonaa, iisoo dirso ayaan uga dhigi doonaa, kolley ID-giisa lambarkiisa ayaan uga dhigi doonaa, maadaama uusan wax document iisoo dirsanin. Waa inaan ID-giisa aan lambarkiisa uga dhigaa. Serial number-kan waxaan uga dhigaa ID-giisa lambarkiisa. Kan qaybtan ugu dambeysa waxaa uga dhigaa serial number-ka 8141. Issue wuxuu sameeyey, waxaa la sameeyey ID-gan tusaale, documentiga waxaa la sameeyey 2020 bishii 2. Sign-ka waxaan leeyahay Ibra. Inta haddii marka foomkan aad buuxiso, sida muuqaal horeba aan u baahiyey, haddii foomkan aad buuxiso waxaa laga rabaa inaad screenshot aad ka haysato si dhow lacag. Ninkan hadeertaan waxaan ku taageerayaa si uu lacagtiisa oo muuqaalka la gareeya share gareeya. Asxaabta qaaliga, muuqaalka la gareeya oo share gareeya. Haddii uu muuqaalkan ku cajiib geliyey, fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka la gareyso, share gareyso, asxaabta la wadaagto, suuqayga sarifkana aad ku soo birtaan. Sahanka Money Exchange, suuqayga sarifka ku soo biira asxaabay, suuqayga sarifka lagu soo biiro, hali taageero. Suuqayga sarifka lagu soo biiro asxaabta qaaliga ah, saaxiibada qaaliga ah. Suuqayga sarifka magaciisa waxaa la yiraahdaa Sahanka Money Exchange. Waa mabkashkayga ama cashier-ka aan ku shaqeeyo ama magaca aan ku shaqeeyo, cashier lacagaha sarifo ayaan ahay. Kolley maadaama Cabdulla Elana YouTube keliya aad ku taqaaniin, lacagahana waa sarifaa. Hadda kolley ninkani waa u jeedaa, kolley akoonkiisii lacag uu kala bixi waayey. Hadeertaan marka waxaan rabaa inaan inta dib uga baxo, dhammaan One-Xbet aan dib uga baxo, aan ku soo laabto, dabeedna lacagta uga saaro, in aan uga saaro, dabeedna inaan lacagta uga saaro. Withdraw ayaan sameynayaa, halkan ayaan taabanayaa, waxaan sameynayaa withdraw ayaan sameynayaa. One-Xbet ayaan tegayaa. Marka hore One-Xbet muusan lahayn, hadda One-Xbet ayaa kusoo biiray. One-Xbet kolley hadda waad aragtaa, qaybtaas kore waxaad ku aragtaa in uu uu ogolaaday ama uu yeelay inuu diro lacagtii $50 ahayd. Halkaas waxaad ka arki kartaa balansigii markii horeeta ahaa $57 inay ku hadhay keliya $2, taasina ay tahay in ay lacagtii ka baxday halkaasi. Asxaabta qaaliga ah, waan soo dhaweynayaa, soo dhawaada. haddii ay tahay boqoshada ay kugu wareysay, fadlan janaalka subscribe saar, like-ta iyo share-ta ha ka ilaawin.